Distinguished guests, excellencies, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It's a great honor and privilege to welcome you all to Villa, Somalia, the presidential office of the nation tonight, to celebrate the 10th anniversary of the strengthening of bilateral relations between Somalia and Turkey. I wanted to recognize our honorable and distinguished guests from Turkey who are with us tonight. Welcome to Somalia, your second home. So dhawaada, Hosh Geldinisi. Today, the 19th of August 2021. Mudanayaal iyo marwooyin farxad ayay ii tahay inaan caawa idinku soo dhaweeyo Madaxtooyada Qaranka oo aynu ku xusayno 10 sano guurada ka soo wareegtay dib u cusbooneysiinta xiriirka laba geesoodka ah ee ka dhaxeeya Soomaaliya iyo Turkiga. Waxaan si gaar ah u maamuusayaa walaalaheena Turkiga ee caawa inala jooga ku soo dhawaada Soomaaliya oo ah gurigiina labaad. Soo dhawaada. Maanta oo ahay 19 Agoosto 2021 waxa ay ku beegneen 10 sano guurada ka soo wareegtay markii Madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan iyo wafdi uu hogaaminayo oo ay kamid ahaayeen golihiisa wasiiradu ay booqasho taariikhiya ku yimaadeen Soomaaliya. Xilligaas oo ay ka jireen dalkayaga xaalado bini'aadanimo oo daran. Xaqiiqatan Soomaaliya waxa ay markaas ku sugnayd mid kamid ah xilliyadii ugu darnaa taariikhdana soo martay, iyada oo inta badan bulshada caalamku ay sheeda naga daawanayeen ayuu Madaxweyne Erdogan yimid dalka isagoo oo xilligaas dib u soo cusbooneysiiyay xiriirka iskaashi iyo saaxiibtinimo ee ka dhaxeeya labada shacab iyo labada dawladood ee walaalaha ah, taasi oo dhigjoojin u noqotay dhibaatooyinkii ka dhashay abaarihii ba'naa ee ka jiray Soomaaliya xilligaas. We are especially grateful and proudly celebrate the inaugural Somali-Turkish Day tonight. Excellencies, ladies and gentlemen, Somali-Turkish relations are truly historic, dating back to the Ottoman period. Today, our strong diplomatic relations have created new opportunities for collaboration and partnership in all areas of mutual benefit. Mudanayaal iyo marwooyin xiriirka Soomaaliya iyo Turkigu waa mid soo jireen ah oo ku siman xilligii boqortooyadii Cusmaaniyiinta. Maanta xiriirkeenan diblomaasiyadeed ee dhidibada adagi waxa uu labadeena dawladood u abuuray fursado badan oo ah dhinacyada ganacsiga, amniga, kaalmada bini'aadanimada iyo isdhexgalka labadeena shacab. Xiriirkeenu waxa uu Soomaaliya u suurtageliyay in diyaaradda Turkish Airlines ay dalka ku timaado duulimaadyo caalami ah, taasi oo noo fududeysay inaan ku xirnaano dunida inteeda kale. Taageerada walaalaheena Turkigu ayna siiyaan waxa ay suurtagelisay inaan dib u dhis ballaaran ku sameeyno dhinacyada caafimaadka, ammaanka, waxbarashada, dhaqaalaha. Sidoo kale waxa uu xiriirkeena wanaagsan suurtageliyay inaanu dib u dhis ballaaran iyo maalgashi ku sameeyno kaabayaasha dhaqaalaha ee wadooyinka, garoonka Aadan Cadde iyo dekedda Muqdisho. Maalgashigaasi oo ku dhisan is-aaminaad iyo dheef wadaagnimo. Mudanayaal iyo marwooyin kasako fursadaha guud ee aan horay u sheegay waxaa jira caqabado guud oo ay wajahayaan Soomaaliya iyo Turkiguba. Caqabadahaasi oo ay kamid yihiin dhibaatooyinka isbeddelka cimilada, cudurka safmarka ah ee COVID-19 oo saameyn dhaqaale oo xoogan ku yeeshay dunida, ayna muhiim tahay in si dhaqso ah looga soo kabto. Dadka Soomaaliyeed waxa ay garowsan yihiin dhibaatooyinka ay horseedeen isbeddelka cimiladu. Sidaas awgeed waxaan la qaybsanayaa walaalaheena dalka Turkiga, shacab iyo dawladba, dhibaatadii ka soo gaartay dabkii iyo duufaantii dhawaan ku habsatay qaybo kamid ah dalkaas, taasi oo sababtay khasaare nafeed iyo mid maalba. Waxaan ku kalsoonahay hogaaminta Madaxweyne Rajab Erdogan, dhabar adayga iyo howlkarnimada shacabka Turkiga oo iskaabaysa ay horseedayso inay degdeg uga soo kabtaan dhibaatadaas deegaanadii ku waxyeeloobay. Dhanka xal u helidda cudurka safmarka ah ee COVID-19 iyo ka soo kabashada saameynta dhaqaale, waxaa muhiim ah in labadeena dawladood iyo shacab ay sii xoojiyaan xiriirka iyo iskaashiga, arrinkaasi oo kordhinaya ganacsiga, maalgashiga,
ka faa'iideysiga iyo isdhaafsiga adeegyada caafimaadka ee ka dhaxeeya Soomaaliya iyo Turkiga. While both our governments are committed to sincerely advancing our solid relations, it is the clear positive engagement between our two peoples that gives me the most hope for an even stronger and durable Somalia-Turkey relations built on the firm foundation of respect, interdependence, and common endeavor. Inkasta oo labadeena dowladood Soomaaliya iyo Turkiga ay ka go'an tahay in si hagar la'aan ah u horumariyaan iskaashiga miradhalka ah, haddana xiriirka xooggan ee ka dhaxeeya labadeena shacab ayaa ifafaalo wanaagsan u ah. Inkasta oo labadeena dowladood Soomaaliya iyo Turkiga ay ka go'an tahay in si hagar la'aan ah ay u sii horumariyaan iskaashigooda miradhalka ah, haddana xiriirka xooggan ee ka dhaxeeya labadeena shacab ayaa ifafaalo wanaagsan u ah in uu sii jiri doono iskaashigeena iyo walaaltinimadeena oo ay asaas u tahay cilaaqaadka ku salaysan is-ixtiraam iyo wada qabsi. Waxaan ku soo gunaanadayaa Soomaaliya ha noolaato, Turkigu ha noolaado, ha sii jiro iskaashigeena dhaxalgalka ah. I would like to conclude by saying, long live Somalia, long live Turkey, long live our strong partnership. I thank you and good evening.